الله شرفت لو Soomaaliyeed maanta arrin muhiim ah ayaan kula qaybsanayaa ay si fiican u dhageysa dhagaha fur ummadana u sii gudbi arrintaas waxay ku saabsan tahay guriyaha aad degan tahay khaasatan dadka qurbaha joogo guriyaha ay degan yihiin waa guriyo raqiis oo dawladda siisay dadka qaarkood aan ka hadlaa Mareykanka waxa la yiraahdaa section 8 Ingiriisiga waxa la yiraahdaa council houses la yiraahdaa guriyahaas asaga marka loo fiiriyo guriyaha private ka ah waa guri aad u jaban oo raqiis ah guriyahan ayaga ah haddaad xaq u leedahay inaad gadatid waa gadan kartaa laakiin arrinta hadda aan ka hadli rabo waxaa weeye oon aad ugu xumahay aabbahay hooyada markay tagaan oo galbadaan aakhare u galbadaan caruurtaada xaq uma laha gurigaas caruurtaada bannaanka la dhigaa la soco sababtoo sharci waxaa jira la yiraahdo succeed right to succeed يعني qofka kale inuu qofka kale ku wareejin kara waxaana suubin kara hooyadii aabbaha isqaba kaliya hooyada haday dhimato aabbaha waa toos u qaadana guriga ilaa ku wada qoran yihiin aabbaha duu dhinto hooyada lagu qoriyaa si toos ah way taas ayada ah laakiin caruurtii meesha timid caruurtan ayaga household way guriga ka tirsiin ago waa kugu qoran yihiin laakiin waxaad ogaataa caruurtan adaa mas'uul ka ah waa fahanti Soomaha meesha 18 ku gaaraan gurigaas xaq uma laha bannaanka la wada dhigaya xaq uma laha gurigaas xaq uma laha nin expert oo councilka ka shaqeeya oo dawladdu shaqeyn la hadlay oo si fiican ugu sharaxay Soomaali barkood waxa laga yaabaa inay yiraahdaan maya wiilkaydu wuxuu bixiyaa dawladda cashuurteeda council tax uu bixiyaa kiru bixiyaa waxaas inay dhaana laga yaabaa waxaas shaqo isku ma laha ninkaas shaqo isku ma laha kiraadaad bixinay council tax aad bixinay iyo gurigan waraaqda tenant agreement-ga shaqo isku ma laha waa fahanteen Soomaha marka Soomaaliya ay ku gadsoomin inaad aad wiilkayda council tax ku qoro bixinaya okay maxaa xal marka maadaama haday weynaadaan 18 guriga laga tuuriyo maxaa xal halkan ku haya marka ninkan ii sheegay waxa weey waxa jirta wax la yiraahdaa ma taqaana assign to the next member sharci hajira oo inaad ku wareejin kartid qofka adiga kuugu xigo guriga aad ku wareejin kartid مثلا hooyo weyn baa tahay ama aabbo weyn baa tahay ama waa xanuunsan tahay caruurtaadu waa wada teenager waxaad suubinaysaa wiilkaada ama gabadhaama ama labadoodaba yaad ku soo qoraysaa tenant agreement-ga waxaad leedahay gurigan ayaga mas'uulka ayagaan ku wareeji ayaga waraaqdan ku wareeji ayaga lagu wareejinaa marka gurigaas ayaga mas'uulka kaba soo qaad adiga biri waaba dhiman aakhiraan u galbanay gurigaas caruurtaad marka maadaama adigoo nool aad ku wareejisay xaq ay u leeyihiin inay ku sii noolaadaan inta kama tuuri karto sababtoo waxaad ku qortay tenant agreement-ga agowde tenant agreement markan kulay mas'uul buu ka yahay qofkan asaga kala saar caruurtaas adiga mas'uul ka tahay waraaqda waxa ku qoran kala saar household-ga oo guri ku nool waraaqda waxa ku qoran waa kala duwan hadda wiilkaadii gabadhaada waaba ku soo qortiba gurigaas ayaga mas'uul ka tenant agreement-ga main aad ka dhigtay tenant agreement-ga gurigaas markaad adiga dhimatid gurigaas ayaga ku sii noolaanaya mustaqbalka arrin kale oo Soomaaliyeed badan ku dhacda jirta مثلا guriga caruurta ma ku soo qoraanba oo sida hadda aan sheegay sharcan ogol kuma soo wareejiyaan aabihiina waaba tagiba hooyadii bisa nool okay caruurtu waa weynaadeen Soomaa caruurtu ku kasta waa lay soo qaad xul saawo ilaa gurigan dawladda iska la moogta adiga waxa lagu soo downsize lagu soo binaa waxa lagu leeyahay gurigan waa 4 qol xaq u malihid saas awgeed waxa lagu siinayaa guri hal qol iyo fadhigiisa wata lagu siinayaa guriga 4 qol oo caruurtaada ku dhashay oo gaadhan kala oo ma sha Allah waa laga tuuriyaa iyada lafteeda la socdo waa kugu soo socotaa walaashay walaalkay waa kugu soo socotaa arrintaas ayada marka hadda intaad nooshahay ani waxaan ku leeyahay caruurtan ku soo qor waliba khaasatan agowde degdeg lama rabo sharciga baar sharciga waxa kamid ah 12 bilood inuu ku nool yahay qofka مثلا gabadhaadi wiilkaada 12 bilood inay kugu nool yihiin ayaa shardi ama qof kale iska dhaqaraaba qof kasta ku wareejin kartaa waan caruurtaada qasab maaha haday caruurtaada kulli waa fillahi alxamdu dad badan oo odayaal waxa jira oo Soomaaliyeed oo guri raqiis haysto maxaa uu xasdi qofkan Soomaaliyeed qaraabatiin ku soo qor maadaama aad qof inta 78 aad gaartay waa u joodaa inaad aakhir u socotid gurigan ku soo qor qof qaraabe qofkaas kuma tuuraya ku soo qor markaan walaalayaal oo sharcigaas jira kaliya laakiin ha u malaynin maadaama caruurtan ay kugu qoryihiin gurigaas inay xaq u leeyihiin imisa qof ogta adigu
oo hadda laga tuuri meeshaan waa ani waxaan ogahay intaa soo familyan ogahay oo caruurtii markay 18 wada gaareen guriga laga tuuri wallahi aad baan ugu xumahay dhowr family waxaan ogahay aabbii hooyadii markay tageen caruurta dhalinyarada guriga dawladda iska leh suuqiina xulo walaalaha sharafta ay dhageysto nabigeena sallallahu alayhi wasallam markasta good example uu nooyahay asaa wax ka sameeyay muxuu yiri arba'un min as-sa'ada afar shay waxay kamid tahay nolosha wanaageeda reereynta raaxada mustaqbalka aad ma taqaan ay kamid afar shay waxa kamid laba shay aan ka soo qabsanaynaa labada shay waxa kamid al-maskanul wasi' guri weyn oo ma taqaan caruurtada ku wada noolaan karaan oo lagu dugun karo oo ilaahay lagu caawudi karo oo ma taqaan dhibaato la iska ilaalin karo gurigaas waxa way nolosha yaani waxay kamid tahay sacaadada iyo liibaanta ay kamid tahay nabi sallallahu alayhi wasallam tan labaadan ku sheeg waxa kamid uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam yaani al-markabul hani gaadiid wanaagsan الله مثلا جاري في عرض لهاي الحمد لله عروض هذا كوق هذا 7 6 أما ديكر 9 6 هاي 6 عروض هذا مرة صفي عنو كلا غادي كرتا نقول شو وين جيدا كميتوير أوكي أنا وصل نقو يا سو ما هذا وصل نقو ميت جوري له ويري هاي وفهمت سوما جوريه إن ما تقعنا دولة دمركي عيدتك وين هذا عمل دنتان عروض اللي وريجيس عروض هامرك هم اللي اسمعوا وريجيس ولا الكيو شرعي أنا كوب بناني سي شرعي كان أي كوب بناني سي مثلا هذا يرير 18 أي كيرهين دولة وحلا جاي إنه فيرس compassionate جراو على هذا نحريس إنه فيرس أما الدولة ده إله وريت عروتي أما قف غرابة لودي لكن جوريجان دولة ده إسكالة لا صعد ده أصلا مركز عن بوريا أما جوريجان جدا أما ده ويناتي ويل كذي قبل هذا كوريج before it is too late أنت نفتا يرتو كوريجري أنت يعني كابحين كهرة مركان جوري رخيصة سيل لغوية وعدتها جوريان برايفت كا أد بيقالوين marka walaalayaal arintaas in la qaybsanaya waa qof expert arintan ila wadaagi wanaagan in la jecla waa odiga khayrka in la jecla marka hal la dadaalo oo intaadan goor tahay ka fikir arintaas ayada walaala sharafta waa odiga 60 jirka oo ka cararay malka mawdka oo dhikarkii sokorta iyo kili xanuunka wada xanuunka cholesterolka iyo gastriga iyo wax badan qabay iyo liver fatty liver alxamdulillah 2020 waxa la qabtay 6 bilood kiliyada waa la dhaqaalinay 6 bilood maanta meeqa ka soo wareegtay 6 sano ka soo wareegtay 2017 waxay noqonaysaa 7 years kiliyada aad u liitaan stage 4 ay marayaan aad u liitaan laakiin wili waan socdaan alxamdulillah waa faantay soma asbaabtan la imaadi socodkaas aan wada artay maalin kasta alxamdulillah markaan sokortu waa iga baxday baalkii oo ma taqaana yani xayrti iga saarneed ma taqaana beerka waa iga baxday cholesterol waa iga baxay gastric waa iga baxay markaan waxa soo dhacday waa suubin kartaa marka ففان سوما كليهم بالليتون كليها مرة دي كرئي سكر يهوري ودلين لكن مرة هدان براروي لها ساعتها انت ماشي مرين اذان كوديها مركز سكر اسقبتها اما دي كر اسقبتها وسهلين مركو على هذا مركز لما الهي واحد يقران هلا يعني هذا الكاسي وهذا الولاكسن لكن امه الصومال غلط كيف فهمتي الهي واحد كوقر وثيلي ساي لكن وإلى فدي كعديو هذيك اسبابتي اللي مادت هذا واقع ليه بلود ليه قبت لما كوري لما تك هذا بريس كيدي باسي عصبدي سريدي سكر سيود لهي maanta keliyada ma shaqayn lahay mashiina saarnaan lahay maanta rag badan saaxiibayaalka oo waxaad unta ma dhameysay dhahayna oo hadda aan karsadana waxa way kulligood hadda dhaqitaan lagu bilaabay marka xaji faarax waa ku digay walaalkay cuntada karsa barakallahu fiikum fadlan video war umada la sii wadaag dhowr qof si qaybi channel kana ma taqaana subscribe iyo weel dhijir maxay follow iyo like iyo ku dadaal umadan u sii qaybi waa inoo biri iyo ballanteen waa socod salaamu calaykum raxmatullahi wa barakaatuh